isbitaalka magaala madaxda gobolka Sanaag Ceergaabo haatan albaabada ayaa u xidhan waxa istaagay gebi ahaanba adeegyadii caafimaad ee isbitaalkaasi bulshada ay ka heli jirtay halka gaadiidka danta guud oo ambalaasyada loo isticmaalo danta gaar ahaaneed MSF waa hay'adii muddada badan gacanta ku haysay kadib kolkii ay ka guurtay isbitaalka magaalada Ceergaabo maalinta ka dambaysa waxa hoos u sii dhacay gebi ahaanba adeegyada guud ee caafimaad ee isbitaalkaasi bulshadu ka heli jirtay isbitaalka Ceergaabo haba yaraatee wax gacan kama uu helin xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Siilaanyo qurba joogta reer Sanaagna dalkasta ay ku nool yihiin kama ay damqan dayaca iyo darxumada ku habsatay isbitaalka haatan xidhan haweeney kamid ah dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa haatan ku hawlan xal u helidda xaaladda isbitaalka Ceergaabo albaabada u xidhay waxaana maanta magaalada Ceergaabo lagu qabtay shir lagaga arinsanayay sidii haweeneydan oo horkacaysa dhaqaatiirta bilaa xuduudda oo iskood ugu hawlan inay volunteer ugu shaqeeyaan isbitaalka Ceergaabo dibna ay u furaan xildhibaano iyo mas'uuliyiin tiro badan ayaa halkaasi ka hadashay waxayna gebi ahaanba ka marakaceen xidhnaanshaha isbitaalka Ceergaabo iyo baaba haatan ka taagan inantalu waa inan aqoon badan leh waa PhD holder waxay sanad gareysay in dadkaas masaakiinta wax u qabato isbitaalka bisaaska ku xoranaya qalabkiina laga qaaday waa baabay waxa la ma jirto yarka xabagta cabaa jooga lagu leeyahay waxa la yiri mari dagaal hadda mar labaad dagana aniga istaagay waynoogna horeynu isu dagnay maanta maradii inaan khayr qabtay ilaahay noo soo diray oo caafimaadkiina la saxamiso ay u socoto inaynu soo dhaweyno oo aynu la qabano baahida ugu weyn ee goboladaas ka jira dalka inay Sanaag number 1 ka tahay haday caafimaad noqoto haday arrimi bulshada noqoto haday waxbarasho noqoto haday wada noqoto wax walba waan baahanahay waqti looma cuno Soomaalidu tirada inagoo isku duuban Ceergaabo waxaan doonaynaa inaynu xalimo support qaban oo dhalinyaradu ha support wax kasta ay aragto haweenka hawlada ilmo jaamacadda ka soo baxayna maxaadib shaahi la fadhiyo warana fadhiisan Dr. Xaliima Maxamed oo ah haweeneyda haatan u heelan dib u furidda isbitaalka ayaa iyaduna halkaasi ka cadaysay hadafkeeda u heelanaanta isbitaalka albaabadu u xidhan yihiin kulligeeda PhD baan wada haysanaa nin walba PhD-giisa markuu qoro PhD waxa weeyaan aqoonta ugu sarreeyay qof bilo aadan uu soo qaadan karo annagu waliba caafimaadka maaragtay ka sameeyna marka barnaamijka wuxuu ahaa barnaamijka haddaba waxaanu soo sameynay saddexdaba horta xagga caalamiga waxaan doonay barnaamijka inaan ka bislayno haddaanu doono barnaamijkaas in nala caawiyo xagga fundingka in horta la fahmo waxaan meeshan loo qof karaan wadana yahay mid shaqeynaya taa waan soo bislayn ta ugu dambaysa waxay ahayd bulshada horta inay fahamto barnaamijkan inuu ku soo socdo ka hawlgalayo marka aad iyo aad maaragtay ugu rajaynahay inuu inoo hawlgalo waa kan isbitaalka oo gebi ahaanba sida idin muuqata waararku ay yihiin kuwa haawanaya oo haadku ka wableeyay kan waa mid ka mid ah waararka isbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo wasiirka haatan xilka wasaaradda caafimaadka haya mudane Dr. Saleebaan Xagla Toosiyana magaca iyo maqalka mooyaane marna uu iman magaalada Ceergaabo wala uu su'aalo kale gadisan ku tagay magaalooyinka Soomaaliland si kastaba ha ahaatee xaaladda isbitaalka Ceergaabo ayaa ah iyadu mid ay ka taagan tahay waxaan la dhayalsan karin Cabdirasaaq Yuusuf Cali war somali.com Ceergaabo